الله وبركاته. سلام انتن دمانتين ويبقى انت كسلامي حقيقة سما iyo ustaad Umar Mustafa oo kumid ahay macallimiinta SGS oo tababarka meelo ku bixiyeen saraakiil SGS Maxamed Ibrahim Bulbul iyo Maxamed Bashar Barjama iyo ardayda oo qiimo leh oo sidbir intani la roogeen runtii geeg wayba inta ka gabagabayaan tababar sidii maalmood andareeri wadaamyaasha ka shaqeeyo idaacado kiyaala iyo telefishinada beledka baydhabo tababarkan way bahaayeen mid usul kabaradaay xuquuqda aadana iyo sidii lan ku dooda lahaay xuquuqda aadana wareeg lamaadu oo SGS iyo tababarkan iyo gobolaas beledka baydhabo ujeedadana way bahaaytay inta la hela wariyaal marka dambe un tababarna inta macallimiin nagadaayaan oo casharada iyo biyayaan waana qaybtii lamaadu qaybtii koobada hore baydhabo qobanay sidoo kale way tababarkan xuquuqda aadanaha SGS way qobatay meelo badan oo gobolada dalka baydhabo way ku mid tahay meeli oo ka tala galnay intii uu ku qobana tababarkan way bajareen dad 20 ilaa deereeyeen oo ku qayb galay Febraayo 2020 ilaa madi tababarka xuquuqda aadanaha oo inta qobanay marka isla yoogi yaha xulni tumeeshan tan ku faylahay ta ku qaadani way baan aragaanay marka tumeeshan taasiti intii iyo dabar koran oo fuliyo koran oo u baahana ama macallimiin ka baahana iyo inta qobada koran marka ujeedadu ku lahayn way walaa shalay la baraday intii follow up ka sameeyna lama intii meel uu ku dhaxalna dad macallimiin maadaama la tababaray oo tababarkii ogaadeen marka lama iyo ogaadeen intii naftarsho iyo nagadan macallimiin bi koran maadooyinka xuquuqda insaanka buugaashin sheegni casharada ilaahay erana way baa geli doonaa WhatsApp-ka oo group lana walaa fursado kale oo jarana meelaha geliyaan meelaha isku dareeraan walaa saxiitaan walaa qalad meelaha isku dareeraan walaa cashar is baahtan meelaha geliyaan haan kalena bog ahaan baan sheegnay sinyaana markan eedan kama hasintiin sidii bari intii in dul qaadateen eedan ka farxasagna intii marka lamaad beeladka baydhow uu ku qabana tababarka xuquuqda insaanka lagu dahwo tumission tingna way baa hasin hooleyn way baa la aragay intii isin eetin dadkii in ka fafay lahaay sanadkii hore ku qayb galay tababarku saasa un marka la sin kulanay hadana dadka kale ku soo xuludaan isin hoos ifay lahaatan way baa sin balan qaadane intii isin macallimiin ku naga tamba tababarada xuquuqda insaanka oo xamarna sin sheegna meelo kale isin ku biyaan ujeedadu ku fadahayna tababarku way kala ma intii la hela wariyaal macallimiin wariyaal ku shaqeeyo xuquuqda insaanka marka taas ujeedada hayti eedan ma hasintiin anoo ku doow afkay iyo kan SGS ba way ba 140 siinka ma hadeeliyane sidii bare sidii haneen dhawaaytan isbarana runtii markana isbaradaan hadii ilaahay eedma bismillaahir rahmaanir rahiim magaay markan koreey way leeyahay Qaadir Maxamed Xuseen way ku mid ahaa wariyaasha madax badaan ee howlgalow magaalada Tanbaydhaba maxaad ka baratay tababarkan saddexda maalmood soconayay xuquuqda aadanaha runtii iyada markan koreey way mahadnaqay SGS oo tababarkan qaban qaaday marka lamaad way mahadnaqay macallimiintii oo tababarka biyayeen oo runtii juhdi badan geliyeen waqti badan geliyeen sidii wariyaasha ka howlgalow magaalada Baydhabo ku faa'iideysan lahaayeen aqoon isweydaarsiga markii xigta runtii tababarkan waxyaabaha lagu hadlayo ku mid ah xuquuqda aadanaha ama arrimaha bini'aadanimada ana soo muhiimad gaar ah lahaayeen wariyaalka Baydhabo ee qaabkii uu ka faa'iideysan lahaayeen marka runtii intii wariyaalaha ku qayb galay oo aan ilmo tahay runtii iyada ku faa'iideysadeen waana sheegado way ku baradeen waxyaabaha qaar oo runtii arrimaha bini'aadanimada ku say tusaalahan iyo sheegado martabintii arrimaha bini'aadanimada xuquuqdii loo lahaay qaabkii oo sheegado inta biifadeen xuquuqdii qof kale uu killay runtii waa tababar eedan faylihay maxay tahay saddexda qodob ee ugu muhiimsan saddexda runtii markii la runtii tababarka wariyaal badan ku qayb galayeen wariyaalkaas iyo ku mid ayaan inta badan wariyaalkan ku muhiimsanaayay oo aan ku mid ahaa waxyaabaha ku muhiimsanaayay oo faa'iido leeyahay kor way hayday inay wariye qofka wariyaha oo ka howlgalow goboladan ama qofka wariyaha Soomaaliyeed inay markan ku horeeyto ogaada xuquuqda bini'aadanka qaybtiisa ku leeyahay ama qaybtu markaas isku geedantiin mas'uuliyadiisa gudub lamaad qaabkii sheegada xuquuqda bini'aadanka deegaanada ku tabiifadi tan saddexaad qaabkii markaas uusan marafadi processkii iyo qaabkii uusan marafadi
barnaamijyada noocaas oo kale si qaabkiisan diyaariyo fadi runtii mowduucyo badan aan ku faa'iidi sida qodob wallaha koob koran ma runtii SGS iyadan ka mahadnagaan markan kooreyta marka lamaad way mahadnagaan dhammaan saxafiyiintii ha ku qayb galay oo waqtigan helay inay barnaamijkan quruxdo badan iyo ku faa'iideysadaan runtii waxyaabahan ku muhiimsan hadda lagu hadlaa arrimo banaadinimo xuquuqda aadanaha si loo dhowrfadi wariyaashana geedka Soomaaliya hoggaan lan hadda arrimo waslan sheego ma jirto qof walba mas'uuliyadda ku saarantay inay qofka kale xuquuqdiisa iyo in sheegada intaasi dhan undooda qof walba way warinimada hambarada inay daljiye deegaan iyo daljiye difaac waan ku howlgala waxyaabihii markaas ay dadka geedka dhibaatada haystaan uu ka caawiyo fadi marka runtii iyadan ma hasan wariyaasha ku qayb galaan SGS iyadan ma hasanta wariyaasha kale Soomaaliyeedna way rajeeyay horumar iyo guul bismillah alxamdulilah kafaa magacaygu waa Anis Bashir waxaan ka socdaa shirkadda caalamiga ee Hubal Broadcasting Service maxaad ka baratay tababarkan xuquuqda aadanaha ee SGS saddexda maalmood ee magaalada Baydhabo ka socday walaal aad u mahadsan tahay SGS waxa waaye wax badan oo aqoon ka bartay saddexda maalin waxa waaye mudaan gaar ah leedahay marka loo eego tababarada kale waxaan ka bartay xaq yani wariyaha uu leeyahay waxyaabo badan adii xuquuqul aadanaha ka bartay marka tababarkan waxaan ka faa'iiday waxyaalo badan oo 1 iyo 2 ahayn maxay tahay saddexda maalmood tababarka ku socday aad u mahadsantahay mar labaad waxaan ka faa'iiday xaqa horta qofka aadanaha ah yani xuquuqda aadanaha xorriyatul qowlka oo kale wariyaha naftigiisa shuruuciyada uu ku shaqeynayo oo kale oo asi ka reeban iyo inta loo fasaxay iyo waxyaalo kale oo badan aan ka bartay SGS waa ugu mahadcelinayaa waxaan u jeedin lahaa jasani hadda Baydhabo jooga wariyaasha Baydhabo sida maxaa lahayd saddexdan biri loo tababaray isay ka sii fiican in loo tababaro mar walba maxaa lahayd in lagu gubaabiyo sidii oo maxaa lahayd wax badan kale u sii faa'iido lahayn bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa waaye Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle oo Soomaali Cable ka socday iyo Radio Warsan ka qayb galayay seminaarkan oo soo qaban qaabiyeen ama ay fulnahayeen SGS oo cibaankiisu ahaa TOT ama tababarayaasha macnaha sida loo tababaro ama waxa loo tababaray wariyaalka ka qayb galay sida iyaga tababarayaal ay u naqan lahaayeen oo hore qayb tii koowaad sanadkan bilowgiisa hore ay soo qaateen hadda kii labaad waaye marka muddada saddexda maalmood oo socday waxyaabo badan aan ka faa'iidnay oo markaas isleenahay qofku wariyaha muhiim u tahay ama u baahan tahay noloshiisa ama xirfadiisana wax beenay ka tiri karto qaasatan waxa in badan diiradda lagu saaray habka loo sameeyo iyadoo lagu sameeyo mawaadiida iyo sharciyada saxaafadda iyo sidoo kale sharciyada dalka u yaala iyo sharciga guud ee xuquuqul aadanaha iyo sidoo kale sida qofka wariyaha uu dheeraan karo dhibaatooyinka asiga shakhsiyadiisa ku imaan karta ama baasi uu dad u geysan kara ama asi loo geysan karaba intaba sidoo kale waxaa ka mid ahaa waxyaabaha seminaarka aan ku baranayna muddadan saddexda maalmood ah in qofka wariyaha uu mas'uul iska saari karo wacyi kasta oo dalka ka jira isagoo markaas ilaalinaya sharciga iyo dalku isugu yahay sidoo kale laakiin kan muhiimadiis waxa uu ahaa qayb hore la soo qaatay qaybtii labaad waaye qayb saddexaad ah dhiman sida ay sheegeen salaan ku reed way eedanka faraxsanaa in ana
hortin surunumna inay ana mayl aray seenku kuma hadnaga muddadii una arlaadan dhowrka beri wada roogneen tababarkii oo sharafta lahaay la qaadaday way faaday inaan mahadnaga SJS oo dabcan dadaal iyo juhdi badan ka biidi inay la hela wariyaal dhinac walba ku dhisan ku tababaran way ognaa inay marar badan tababar beledkan ka qabadeen markastana yani waxyaabo ku hadlayaan eeyin wal oo andanayo an xiisayo wariyaalka xilli hore 10 kale waxaan ku duwan qaadaneen haddaba ku hadalhaynaa xuquuqul aadanaha iyo meel aray sida warbaahinta unku adeega kor marka way ka faraxsanaa inay 10 noocaas oo kala hana deeran waana meel aray wariyaalka ku howlgalo magaaladan siida lambara way faday inaan marka la dardaarama dadka ku qayb galay oo wariyaalka ah fursad aan heli barnaamijkan iyo qayb qaadan oo aan lahaa meel aray way fursadan heleena 10 oo dahabi ah muhiim ah oo dabcan lambaahanyi waqtiga lambaahanayna iyo haka toosan marka way san lahaa 10dan iyo duruusiisan qaadateen dhalisatan dabcan saddeber oo tababar walyar yalla ka barada laakiin muhiimadu way buaha adoo wariyata dihintiska iyo macluumaad yar oo hordhac la ka sii inta kale in aad si dhamaystirato aad si baarato rasay soo bidaya la koofade marka way rajeeyay in walaay muddooyin badan wal fikrad fiican aan ku haysan in uu geeka hadii xuquuqul aadanaha iyo media lagu hadalo wal badan oo xog iyo macluumaad aysan ku haytan sida ustaad Hanad Ali Guuleed sheegana dadka way la siintaa baraay hadiisan ogdin hadii kalaba qaab oo macalinimo yani dad tababaryaal macalin amal la siintaa bari wayna rajeeyay inay isin naftirkiinba walaagata ku dambeey dhatigna istabaro kortan dad kalena tababaro kortan oo 10 sii kortan that's why oo buwaqtan la siin si 10 kale oo slideska inuu hasin dareelan leey